بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعلى ونكسن داوديال meel kasto joogtaan waxa soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ka diyaarinay madaxweynaha maamulka Khaatuma Professor Ali Khalifa Leyd oo aanu wareysi dhinacyo badan taabanayaan kula yeelan doono professorka oo ku sugan magaalada Hargeysa horeyn Ali Khalifa Leyd waxaanu kaaga mahadnaqaynaa wareysigan gaarka ah oo kula yeelay telefishinka caalamiga Soomaaliya News TV iyo sida aad nooga ajiibtay waan ku soo dhaweynaa adiga mudan ugu horeyn waxaan ku weydiinaynaa maalintii shalay waxa la gaaray heshiis wada hadallo muddo soo socday oo uu noqonayo kii shanaad oo Soomaaliland iyo Khaatuma maraaxil kala duwan soo maray heshiiskani adoo shalayna warbaahinta siiyay kana hadlay heshiiskan haddaynu barnaamij ku farno guud marna noo samaysid heshiiskan wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore ee soo socday ka dhacay Djibouti iyo aynaba laftiga lagu kulmay أنا شكر ومحسنتها أديك وهذه الصمنيوس يدقي استياشين أو السلامة يا نشيس كانوا صادوا شكتي نشيس دبتشو قوي دور نشيس أخرى دات كانوا دات سيقين ما يعني هاي جدي لو جدي يوم تضبع يا كشري عند السبب يجبوتي بقى دات كاسو مدة هذا وحنا مالينا بشيء ديسمبر 2020 كذي 17 إلى 2020 كذي بالشركة صورها إلى حدنا وقتها هود حي أنا جديد سوا شريسي وحنا أقول نقطي إن شليتو قيب تنهره شيء كخاتمة يسوماليلاند يسلودن قيبتي سهرة شلي إن لقوه شيء لقونا حي هوتيل كان أمباسدر تقدر سينا واحد سامبان ملاينا يا وحقوية هنا وسيدا لفتي سويشيس كقطال بالله باكرة بيش جولاي تبين كذا برعلا يسوي إيمانا يا شرر كلا يا شروين يا لأبابولا يا مركا دوا بلوغا هو وطلابة أو جوه الرئيسة بيشيس كجودان كل تريشرنا أدان خاتمنا هاي أنا الله قال سومالنا waad mahadsantahay madaxweyne haddii aan ku weydiiyo su'aal kale oo la xiriirta isla heshiiskaasi heshiiskan qodobbaa ku jiray qodobbadaas waxa ka mid ah in dastuurka Soomaaliland dib loo furayo sidoo kale waxa ku yaalay sinaan iyo cadaalad la sameyn doono qodobbadaasi taraafna ku warnaayeen way koobnaayeen hadoo sharaxaad naga siinaya kana mid ahaa madaxdii shalay joogtay hawshan soo qaban qaabasay warqadaasi heshiiska ku qornaa labadii dacwad taasaaleen faltusaale ama qaabka heshiiskaasi qodobadaasi hada loo dul istaagay hadii ay tahay qodobkan waxaan u maleynayaa saadud kala horeysay qodobkan ah in dastuurka Soomaaliland dib loo furo waa run qodob annaka iyo kubaan isku afkaranay oo ahaa Soomaaliland sida hadda ay tahay iyo hay'adahan dastuuriga jira ama baarlamaanka ha noqdo baarlamaanka golaha wakiilada iyo kan gurtida ama ha noqdo xukuumadda jirta ama ha noqoto habka maamulkan oo dhan uu dhisan yahay habanaanu ka qayb galayna maaha waa jira afraad ka timi Soomaaliya sanaag iyo hayn oo xukuumadda ka mid ah ama baarlamaanka ku jira laakiin waxaan u maleynayaa wadaadka muxuu yiraahdaa adana annaga tagnayo ilaahay laga yaabo la isku raac midda la isku raacay waxa weeye dadka reer Soomaaliya sanaag iyo hayn in ayan maamulkan Soomaaliland ee hadda jira uusan ahayn mid ay raali kaga yihiin habka uu dhisan yahay iyo siyaasado badan oo uu ku shaqeynayo marka midaan ku soo ururinay waxay ahayd oo kulli ay tahay in laga wada hadlo oo shirka barcay shirka dambeeya laga wada dastuurka furistiisu macnaheedu maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa ma uunaha dhowr qof oo meelahan ka muuqda laakiin wax wada qaybsi la yaqaano oo dastuuriya inay noqoto yaa lagu hiranayaa midaan hadda tafaasiilka ama modalities baa jira siyaaro wax lagu
lagu qaybsado oo maaragtay adduunkuba hore u soo maray oo dawlado howlaha ku kacay oo dastuurkooda ku dhigtay intaba waa jiraa wixii aan ka faa'iidaysanaynana waa ka faa'iidaysanaynaa waxaanu rajaynaynaa qodobkaas waa qodobka dhextaalka u ah wixii kale la wada qabanayaba in arrintaa si maskax furan loo wada fiiriyo wax laga wada raalli yahay oo khaasatan dadka reer Sool iyo Sanaag ay raalli ku yihiin inay ka soo baxaan waan gartay waad mahadsantahay Professor Cali Khaliif wada hadallada imika Somaliland iyo Khaatumo waqtigan maxaa sababay inaad ogolaataan inuu wada hadal intaa leegay inay dhex maro Somaliland waxaan u maleynayaa markii horeba Somaliland iyo Khaatumo hadday isla ogolaadeen inay wada hadlaan xabaal bilaash ma qodaynin waxay u nahaydo ilaa inta ama shirarka ah noqoto ama siyaalo kale lagu kala warqaataba ha noqdeen waxa uu lagu hirinay heshiis in la gaaro heshiiskii talaabadii ugu horeysay oo ah wax weyn macna badan oo wixii dambe ee la qaban doono saasay ahayd wax bilaash loo malayn wax wada hadlaynaa wada hadalkii intan uu dhalay hadda waxaan rajaynayaa in halka laga sii wado waqtiyo hore waxaad ku gabsadeegteen oo ku celcelin jirteen in madaxdiina Khaatumo ay tahay Somaliland waxaan wada hadal la furaynaa ilaa iyo inta ay ciidamada ka qaadayaan deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn tii waxba iska bedelay wada hadallada kulley si uun bay u bilaaban lahaayeen kulley waa run waa arrin aan qabnay waa arrin Sool iyo Sanaag iyo Cayn dadku ay lahaayeen nin xabada dhafoorkaaga haya saad wada hadal iyo sinaan labadiina aad u wada hadashaan ma ay suurtoobayso laakiin waxay noogu muuqatay iyana hadday meel arrintaa iska taageen waxa anaga noo daran ciidamada meesha jooga inay dhulka ka soo kacaan kaasuna waa yoolka iyaga ka mid tahay waxaanu ku hiranay ka mid tahay iyana waa og yihiin dadka iyagana saasaanu ugu sheegaynaa in ciidamadaas ciidamo sii joogay dhulka inay noqon laakiin midda la raacinaya waxa weeye ciidamada galab lagama dareerinayo meelaha ay joogaan wixii bedeli lahaa ee nabadda gacanta ku qaban lahaa waa in la dhisaa Khaatumana taa laga rabaa wax iskama aha hadal hadafoo la iska tuuro ciidanku anaga baxo waxaad ku bedelaysaa ayaan jirin marka hawshaas hawl culus annaka noo taala weey aan jecel lahayn annaka iyo Somaliland inaan isla gurfayno wax aan ku qanacno oo nabadda wax walba annaka asaas noo ah nabadda annaka gudaha iyaga iyo nabadda dariska iyaga iyo khaasatan Somaliland naga dhaxaysa taas arrin aanu aad iyo aad looga fiirsan doono oo laga buuxsan doono waad mahadsantahay su'aal kale oo la xidhiidha heshiiskan iyo wada hadallada Somaliland inaga dhaxeeya ku weydiinaya waxaad doonaysaan in natiijada wada hadalladu noqoto sidii laba dawladood oo isku biiray oo kale bal qaabka aad wax u doonaysaan u sharax bulshada ku daawanaysa waxaan u malaynayaa midhay turubka ma ciyaartide dad turub ciyaarays turubka lagu bixiyo ninkaad wada ciyaaraysaan ma tiraahdaa hey aniga turubkayga waa ka waxyaalahaas waa waxyaalaha laga wada hadli doono laakiin ama ha noqoto laba maamul baa wada hadlaya labada maamul waxaan la leeyahay dastuur loo furo waxaan la leeyahay cadaalad iyo sinaan iyo anagu cidna marti iyo magantoona u noqon mayno midda labaad annaka waxa aad noogu weyn gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn sida aan qabo goboladan Somaliland inay ay noqdaan meeshan xukunkan magaalo madax iyo madaxweyne ay tahay dawladaha Afrika odayba hor fadhiya kaas baana le ana muxuu ahaa Sheekh Al-Kulo wax walba ka jawaabay arrimaha annaga noogu daran waa arrimahaas in devolution la keeno macnaheeduna ay tahay gobolada kulley haddaan reer Somaliland kale u diyaarayn iyaga u taab annaga midda noo taal waxa weeye gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn wada ay leeyihiin oo danahooda ay uga baaraan degayaan oo qabsanayaan ama hab maamul ha noqoto ama hag siyaasadeed ba ha noqoto iyo annaka nagu culus ma una macnuhu halkana loo soo guuraayo ragumba ama gabdhaaba baarlamaanka iyo xukuumadda iyo kamida
arrimo intaa ka qoto dheer baa noo dhaxeeya oo aanu u aragno la'aantood inayan noqonaynin wadahadalka meesha uu ku soo dhammaanayo wax dadka iyaga qancinaya. natiijada wadahadalku waxaad doonaysaan kolay Somaliland doorashooyin baa la gelayaa doorashada ka hor inay dhammaadaan maya uma eka waxay noqonaysaa haddii bilmithaal imanka wadahadalladan uu reer Somaliland oo dhan ku dhan yihiin maxaafid iyo mucaarad dee walwal nagama hayeen doorashada haddiise ay hadda tahay waa gacan uur ku jirta waa bisha November 13 axsaabtan tartamaysa inkastoo uu yahay waxa hadda la dooranaya madaxweyne laakiin de madaxweynuhu wuxuu noqonayaa mas'uulkii guud ee Somaliland annaguna kullay dad ahaan waa jiraan dad isdiiwaan geliyay oo aan tiro badnayn oo reer Soomaaliya Sanaag iyo Cayna arrimahaas kullay waxa aanu ku hiranaynaa inaanu in badan oo istiraatiijigana ku heshiino wixii noo hara oo qaarkood ay noqonayso istiraatiijigna lala sugo doorashada ka bacdi. Professor Ali Khaliif waxaan kaloo ku weydiinayaa si ay wararku sheegayaan waxaa jiray kulan dhex maray waftigiina hogaaminaysa Khaatimo iyo wasiirada Somaliland ee ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Buuhoodle oo maalmihii dambe warbaahintu qoraysay kulankaasi maxaad naga siin kartaa tafaasiil dadka maamulkan ku jiray ama wasiiraha noqdeen ama xildhibaanaha noqdeen deewaana dhulkaana waa u dhasheen maamulkan iyo hay'adahan dastuurigana waa ka mid iyo kuwa Somaliland dhalashadoodu waxay doonaysaa noqday laakiin waa Somaliland anana Khaatumaanu nahay dhowr qodob baanu ku heshiinay kow in haddii la wada shaqayn karo oo waxaan maamulka Somaliland aan la wadno siyaasadda iyo hoggaanka waxaa leh Council of Ministers kale ee Somaliland iyana kaasi ka mid yihiin anagoo aragti midaysan yaanu uga minan fadhinaa qolyaha kan Soomaaliya Sanaag iyo Cayn ka soo jeeda qaarkood waxaanu loo arko annaka iyo Somaliland baanu u aragno inay tahay midaanu ku wada shaqaynayno ama waxyaalahaanu isleenahay aad ka doodeen oo ka heshiiseen in qaarkood siyaasad ama mid shakhsi ah noqota meeshii doonaysaa ka timaatay ka soo horjeedaan oo muuqato oo saxaafaddana ay kaga hadlayaan annagu taasaanu u aragnaa inayan wax badan taray wada hadallada marka iyagoo Somalilandooda annaguna Khaatumadayda aan nahay wixii dana aan wada leenahay ee aanu isku afgaranno ama afraadahaadeen ama iyagoo wadar baa ahaadeen inaanu ka wada shaqayno ta ugu weyna waa arrinta nabad waa tahay waxaa jira deegaanadii Sool Sanaag iyo Cayn waftigiina Khaatume ee magaalada Hargeysa ku sugan ee heshiiska iyo wadahadalka la furay Somaliland dad badan iyo dadka qaar oo aragti ka duwan qaba dadkaasi oo fikirka ay qabtaan ka duwan waxay sheegayaan in Somaliland isku dhiibteen oo kale dadkaasi maxaad sheegaysaa dadka laba arrimood baan u sheegayaa annagu intaanu waxaanu muuqata meelaha intay ka yaqi lahaayeen in codka la mideeyo dadka reer Soomaaliya Sanaag iyo Cayn sida waxa ugu habboon ay ugu mug weyn loo goosan karo laakiin nin halkaa ka yabqayo la annagu kuma ogolin halkiisaasu baa ka yabqay annaguna waxaanu ka badan weyno yaanu yeeli midda kale aan ku darayaa waxa weeye bahashan yabaq iyo meelahaas nin taagan waru ka sheego waxbaan fahmayse hadduusan tan ku qanacsanayn wixii ummaddan loogu bedeli lahaa waa inay muuqdaan haddaan lahaynin armay fiicnaan lahayd in la daayo oo baltanu ilaa intay ka midhan dhalayso la daayo heshiiska wixii la galaana laba gole meeshanayba ku dhan yihiin oo
khaatumo oo baarlamaanka iyo xukuumaddu waxa uun meeshan ka maqan golaha uun dhaqanka kaana hawshaas waa hawl noo taalla habka naga waxaa noo daran dadweynaha sool iyo sanaag iyo cayn waxay dantooda ka dhex arkaan oo ku kalsoon yihiin oo ku qanacsan yihiin inay meeshan ka soo baxaan taasaanuna annagu ninkii kale ee fakar kale qaba dee fakarkiisa iyo siduu ku dhisayo iyo sida uu u helayo tan mid ka fiican dee waa inuu soo bandhigaa waa tahay dadka qaar waxay qabaan Professor Cali Khaliif waa nin keligii socda oo aan golaha dhaqanka oo kale aan la tashan ama tashiga waxba ka siin taasaa keenaysa in hadal ay ka yimaadaan arrinkaasi maxaad ka jawaabaysaa hadalka cidda tidhaahaa waa nin keligii socda wax badan bayn ogeyn hawshana waa qaybsanta khaatuma dastuur bay leedahay dastuurkeedana waxaa ku yaal hawshu inay qaybsan tahay xukuumadda ama golaha fulinta yaa mas-uuliyaddaa leh mas-uuliyadda sida dastuurku qurayo sida wada hadallo loo dhan yahay oo meelo badan lagu qabtay go'aanadii ka soo baxay waxay tilmaamayaan in looga dambeeyo golaha fulintuna ama marka hore intaan meesha la teginna siyaasadda laysla baadhbaadho waxa ay dantu ku jirto inta ay socdaanna iyo markay dhammaadaanna mar walba lala socodsiiyo ciddii ay arrimahaas khuseeyaan golo hadda taagan oo jira oo golaha guurtida ah oo shaqaynaya sida golaha baarlamaanka iyo golaha fulinta ay u shaqaynayaan ama ay muuqato siyaasadda waa laysku qabtay waa golahaas laakiin annaku marnaba doorka ay iyaku leeyihiin ma aanu dhayalsanayno waxaanuna ku dadaalaynaa si allaale siday noogu badinayso inaannu iyaka iyo ummadda dhulkaa ku noolba aanu ku wargelinno mar walbana ugala tashanno laakiin warxuma tashiil iyo qolyo raba inay wiiqaan mas-uuliyadda anigay saaran ee ah in la yidhaaho maya ninkanu isagaa waxaan wata dee weyddiiya golihii wasaaraduna waa joogaa muxuu ahaa baarlamaankiina waa joogaa dad kale oo badan oo waxgarada oo reer khaatumiina magaalada waa jooga bal iyaka su-aashaad aniga weydiinayso bal iyaga weydii u bani Professor Cali Khaliif su-aal kaloo la xidhiidha iska qaar kolley warbaahinta waxay ka turjuntaa afkaarta dadka qaar iyaga laftiga waxay qabaan xilligan wadahadalka khaatumiya Somaliland waxay imanayaan markii maamulka khaatumo uu ka raja dhigay in dowladda federaalka Soomaaliya u aqoonsato maamul goboleed ka mid ah maamul goboleedka Soomaaliya taasaa keentay in xilligan wadahadal marka la furan arrinkaasi maxaa ka jira waxaa ka jira qolyihiinnan bahda saxaafadda armay fiicnaan lahay dastuurka khaatumo inaad akhrisataan dastuurka khaatumo waxaa ku taalla inaannu wadahadal la gelayno waxaa la meeshii danaha iyagu ay yaalliin ama ha noqdeen sida aad sheegayso xukuumadda federaalka ah ama puntland ha noqdeen ama somalilan ha noqdeen wax oggolaada in la wada hadlo annagu somalilan baanu haynaa dowladda federaalkana waxashatano hadda ma aha wada hadallo badan baanu dowladda federaalka la wadnay kumaanan guulaysan sababta ay u ictiraafi waayeen khaatumo inay maamul tahayna annagu waxaanu islahayn dastuurkii markaa u yeelay dowladda federaalka aad raacdeen ummad ilaa 5,000 oo qof ah yaa taleex ku shirtay dhismadii oo dhan baa ku dhammaa garaadadii salaadiintii ogaasyadii reer khaatumo oo dhan baa meesha ku dhammaa ilaa waxaan u malaynayaa 100 iyo wax la jiro caaqil iyo dadkaasu leeyihiin wax 80 ku dhow yaa joogay waxaashu maalin walba yaglee laguma jiri karo dadkan markaa waxay go'aansadeen dastuurna inay yeeshaan maamulna ay dhistaan maamulkuna uu golayaashaa kala yeesho saanda sheegaya fulinta baarlamaanka iyo golahaas sare ee dhaqanka tii un baanu annagu ku soconnaa haddii wada hadalladaas aanu la leenahay meeshaa la yidhaaho xamar ay sidaanu u rabnay u socon waayeen dee annagu dantayadaa noo daran hadda abaaraa ka dhacay
meeshaas xanuunnaa ka dhacay dowladaannu annaku islahayn oo kulli maamulkii hore ee hadda bishii February meesha ka baxay si waxaanu annaku u aragno dantayada inaanu ka dhex arkayno ma aanan arag ilaahay annakuna baday markaa inaan tashano talada iyadina taasay noqotay ugu dambeyn waayahay barnaamijku waa iska soo gabagabaynaynaa bulshada Sool Sanaag iyo Buuhoodle ee ku daawanaysa maxaad u sheegaysaa waxaad ku sugan tahay magaalada madaxdii Somaliland Hargeysa shalay waxaad heshiiskii ayaad gaadheen inuu sii socon doono qodobada soo saartay maxaad bulshada u sheegaysaa oo ka duwantii shalay dhacdii shalay ka dhacday meesha maxaad u sheegaysaa ma waxaan ku dari lahaa hawshana hawl ballaaran weeye dadka Somaliland iyo dadyoga aan dariska nahay dee hawlo badan baa naga dhaxeeya dadkanuna ummadana maamulay leeyihiin ma ha noqdo Somaliland ama ha noqdo Puntland ama ha noqdo meesha Kelinka ama xamartaas iyo dowladda dhexe ha noqdo dee dadkuna hadday wax ku heshiiyaan oo dastuur samaystaan oo wax doortaan oo dee dadkii hawsha loo adeegsaday in looga dambeeyaa habboon haddii ay noqoto maya anna waxay ila tahay qofku fikirkiisa xaq buu u leeyahay oo dimuqraadi inaan ku dhaqanno waa habboonta laakiin anaa idhi oo aan ku salaysnayn waaqaca ina haystaa muxuu yahay waxay siyaalaha aynu waaqaca uga heli karno oo laga hago xalan gala marba mid baa la saaraa sida looga bixi karo dee talo goonyaha laga joogo oo mug leh yaa habboon afraad iyo jilib odhanaya annagu reer hebel haddaanu nahay marka sidan inoogu badisa jilib wakhtigan qarniga 21aad aan joogno iyo geeska afrikadaan maanta joogno arrin jilib uu wadi karo arrintan maaha isku duubnaanta dadka Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyay ku habboon tahay macnaheedu maaha saacad walba la joogo 100% in fikirku uu mid noqdo ma suurtoobayso magaalada Sanaag garowe gaalkacyo waxa ka dhaxeeya xaaladoodu waxay tahay waa ognahay marka arrintan uun talo waa la raadin isku duubnaan waa la raadin laakiin macnaheedu mar walba ma aha way jiri doontaa ma jirayso laba qof oo walaala ah yaa siyaasadda isku qaban kara oo ku kala tegi kara marka midaan u soo jeedinaya waxa weeye bal agaha dhulka ha lagu hayo ha loo dhabar adeego arrimo culus baana hor yaalla arrimaha haddaynan isla ogolaan oo meel uga soo wada jeesan waxay u noqonaysaa in waxaynu rabno iyo waxa dhaxal ummadan u noqonaya kuwa hadda dhabarka lagu sido ama kuwa aan badhalan dantoodu waxay tahay dhulkana ummadan nabadna inay ku noolaato dhexdeedana ku noolaato nabad dariskeedana kula noolaato waxa horumar loo baahan yahay qofka intuu yiraahdo waan xanuunsaday oo isbitaal meesha igu dhowaan u kacaya ama Hargeysa aaday ama Garowe aaday ama meel kaba siifo hadaba xanuunna waliba ahayn xanuunna asaa u waaweyn caafimaadkii waxbarashadii madan hadda abaar baa ku dhacday xoolihii baa ka dhamaaday 80% haday ka badnayn dadku xoolahaasi ku noolaayeen dadka fikiri kara oo oran kara ummadii xooluhu hadii nabadna la helo ilaahayna roob uu ku manaysto xooluhu dib bay u fufi waqti qaadan laakiin inteedii yaa u ehela yaa hadda meeshan aan joognay Somaliland dowladda joogta iyo dadkeedii waxay ku heshiiyeen ummadii xooluhu ka dhamaadeen ama ka yaraadeen in xoolo loo iibiyo intaanu taa ka hadli lahayn intaanu taa waxaan u malaynayaa iyadoo aan waxay xumadda siyaasaddu la dejiyo in waxa dantu ay ku jirtana dee la ogolaado in lagana wada hadlo in suuna tanaasulo annaguna diyaar baanu u nahay mar walbana diyaar waxaanu u nahay wada tashi iyo shirarka la leeyahay la qabto waa lagu dhawaaqaa kuwa ugu dhawaaqa dheer ee la shirarka la qabto oo kuwa dibadda jooga u badan ilaa 2 jeer ama 3 jeer baanu shir dambe talax ka baadi qabanay mid walba la naadiyay
hadday ugu badnaato 2-3 qof 5 qof wax ka yar ayaa ka yimaada waxaan u malaynayaa awrkuun baa lagu kacsanayaa annagu waxa ummaddu ay leedahay miiskaasaanu saaraynaa wixii talahaya caqli iyo xikmad haya annagu waa soo dhaweynaynaa intaasaan ku oran lahaa madaxweyne waad mahadsan tahay su'aalaha ka baxsan baan ku weydiinaya maamulka Puntland waxa uu sheegay heshiiskii shalay cadawda gaadhay Somaliland inuu qayb sharci yahay gobolada Sool Sanaag iyo Cayna ininku dadkii khaatuma ahaan mas'uuliyiinta ay meteleen waxaad ugu jawaabaysaa oo iyakana metelamiya sida yiraahdeen sidayna waa iska hadlow inay igare wuxuu halka ka yiraahdo waxa dhageystaaba ka gardaran waxay Puntland ka tahay Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxa quray tahay odayaal dhowr marba inay u yeedho xoogaan dhaqaalaha ku seelseelo adquureed u tuurto nimankaas wartooda ha ku aadeen tooda ninkaale madaxweynahan ahay oo dastuurka ay faraya inaan anigu dhulkan xukumo war ma xukumo war dadkii waxaan lahaa way tashadeen maamulkooda ay samaysteen kooda ha u taliyo gaalkacayo oo isagu u dhashay yaan gacanta ugu jirin gaalkacayo waxaan u malaynayaa inta loo eego ama waddanka uu ka maqan yahay ama gaalkacayo iyo garowga ka maqan yahay baa ka badan intuu joogo hadduu cid la talinayo ama cid nasteex u yahay war isaga iyo wixii maamulka ku weelaya ha tashadeen danahoodana ha ku aadeen annagu mar walba waxaan diyaar u nahay hadday iyaku miirsadaan wada hadallo iyo nabad ku wada noolaansho iyo deris wanaag waxse aan wada leenahay oo siyaasada oo golayaala ma ay jirto waxaan rabaa hoosta inaan ka xariiqo wadaadkaas waxaan u malayaa dhidarkaa layidhi waxbuu ka hurdo badan yahay mar uunbaa danab ku dhaca oo kaca markaasuu meesha ugu horraysa ee u jeesan karo yuu u ordaa dad iyo ood iyo dundumo iyo wuxuu doonaya waa jiidhaya wadaadkanu mar uunbuu maqlaa shirar baa halka socda ama dadkii baa shiraya oo danahooda ka hadlaya markaasuu sidii dhidarka uu soo hambabaraa oo soo dhaqaaqaa waxaan leenahay waddadan ugu baydhaynaa bal meesha uu ku ordayay ha noo dhaafo marka waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan madaxweynaha maamulka khaatumo waraysiga aanu la yeelanay iyo sida fiican uu nooga aqbalay daawadayaal intaa waxaan kusoo gabagabi doonaa barnaamijkaasi gaarka ahaa waa sawir qaadidii iyo isku dabaridkii boqor Axmed Cabdi Cabdifataah Maxamed Gariyaad iyo Axmed Kulmiye iyo soo saarista aniga Cabdishakuur Haybaa waxaan nigeeyay tagnaa dhamaantayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.